أكبر الله أكبر وفتح والنصر. مدحونا جمهورية فدرالك الصوماليات مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينياش مامول goboleedada xubnaha ka ah dawladda federaalka xubnaha golaha wasiirada marti sharafta kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde ra'iisul wasaare ku xigeenkii iyo madaxda kale ee golahan fadhida qurbajooga Soomaaliyeed mudanayaal marwooyin waayeel dhalinyaro marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal ma rabo waqti fara badan inaan qaato waayo caawa waxaynu u wada fadhinaa marti u nahay xafladda weyn aad u soo agaasinteen waa habeenkii madaxweyne Farmaajo waa habeenkii aynu wada sugaynay waqti badan ka qaadan maayo. walaalayaal waxaad ogtihiin 8 Febraayo in ummadda Soomaaliyeed ee golaha shacabka ee sharafta badan wakiil ka yahay cod aqlabiyada ay ku doorteen madaxweynaheena oo iyagoo watalaya ummadda Soomaaliyeed shacweynaha Soomaaliyeed min koonfur waqooyi raas kambooni ilaa Saylac si weyn la isugu soo baxay la taageeray qurbajoogtu taageertay taageero weyn oo xoogganna lagu soo dhaweeyay. haddaba walaalayaal waxay tahay laba shay inaan isweydiino maxay tahay madaxweynaheena aynu sida weyn u soo dhaweynay ujeedadiisu maxay tahay ujeedada madaxweyne Farmaajo maxay tahay himilada Soomaalida maanta waa arkaysaan Soomaalida maanta waxa ka marakacaya doorashada xalaasha u dhacday ee weyn oo ah Soomaaliya nolol bay rabtaa Soomaaliya way tanaaday Soomaaliya way israacday Soomaaliya wada jir bay rabtaa qabiilkiina waa laga baxay waxa tusaale u ah sida sharafta leh ee ay doorashada 8 Febraayo u dhacday. ujeedada madaxweynaheenu waxa weeye in la helo Soomaali mid ah Soomaali walaala Soomaali wada jirta waxa caawa arkaysaan madaxweynayaashii maamul goboleedada oo dhan golayaashii wasiirada wakiiladoodii madaxdii hore iyo idinkaba in si weyn la isugu soo baxay oo ay marxaati ka tihiin wada jir iyo hor u kac in loo joogo. himilada Soomaalidu ay ku qotontaa waa ta idinka la idinka rabo inaad naftiina u hurtaan dib u dhiska dalka wada jirkiisa